Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qaybteena hore waxay inoogu joogtay maxay sameeyeen Tataarku markay arkeen Maxamed Khawaarsimo oo cararay. Saaxiibayaal, qaybteena maanta waxay inooga bilaabmaysaa masaafadii ay socdeen kooxdii yarayd ee Tataarka ahayd iyo halkii saldhigoodu ahaa waxa u dhaxaysay 650 kiiloomitir. Saldhiguna waa kii Samarkanda ee Genghis Khan fadhiyay. Waxa u dhaxeeyay dhul siman iyo dhul aan sinayn, webiyo, buuro iyo banaanaba. Kuna darso Tataarku ma kala yaqaanaan dhulkan iyo wadooyinkoodu sidoo kale leexleexdaan. Waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen waxyaabaha looga faa'iideysan karay la dagaalanka Tataarka. Mar kale waxay ku tusaysaa kooxdan 20,000 ee Tataarka ahi inay ka goodoonsan yihiin xaruntoodii kana fog yihiin. Ku darso deegaanada ay marayeen kooxdan nima kala yaqaanaan. Haddii la weeraro dhufaysyo ay galayaan iyo meelo ay u cararayaan ma jirto. sidoo kale u shicirka loo tuuro askari bay ku dhici lahayd oo dhul ma gaadheen. Muslimiintii malaayiinta ahayd hadday isku soo bixi lahaayeen 20,000 birtay ka asil lahaayeen. Muslimiintana dad aad u yar baa ka dhiman lahaa. Laakiin sidaas ma dhicin. Way soo noqonayaan kooxdan yari. kadibna muslimiin badan bay meydkooda ka tallaabsan doonaan. waxay muslimiintii waqtigaas nolosha ugu dhegsanayeen sida aynu maanta ugu dhegsannahay. Tataarku marba intay magaalo galaan bay u birbireynayeen muslimiinta sida laxaha. maxay sameeyeen kooxdii khaaska ahayd ee Tataarku? waxay galeen magaaladii Masandare ee dhufaysada adkayd, waxayna ku sameeyeen wixii ay khayrkeed ku sameeyeen, magaaladiina way gubeen. waxay u gudbeen magaaladii Rey. intii ay sii socdeen wadadii u dhaxaysay Masandare iyo Rey, waxay heleen Maxamed Khawaarsimo hooyadii, dumarkiisii, xoolo iyo maal faradhaaf ah iyo hub aan hore loo arag noociisa. wixiiba waxay u direen Genghis Khan. waxaadba moodaa in Ilaahay dullinimadu sii siyaadiyey Maxamed Khawaarsimo oo xitaa dhintay. nin walba waxa uu ahaa taariikhdu kama been sheegto iyo wixii uu geystay. bal eeg ninkaasi siduu uu taariikhda baalka madowga galay markuu dayacay naftiisa, shacabkiisa iyo xitaa qaraabadiisa iyo ehelkiisiba. kadib waxay galeen magaaladii Rey iyana way qabsadeen. dadkeediina way boobeen, addoonsadeen, kufsadeen. waxayna ku sameeyeen waxaan hore loo maqal. waxaas iyo wax xilliha ay ku sameeyeen tuulooyinkii magaalooyinkii u dhowaana ilaa ay gaadheen magaaladii Qaswiin oo iyana ka mid ah Iiraan. way laayeen dhammaan dadkii magaalada, weliba tiro sare u dhaafisa 40,000 iyagoo 20,000 oo askari ah. waxaa xigay duulaankii Azerbaijan. waxay u jihaysteen Tataarkii galbeedka badda Qaswiin, halkaasoo ay ku taalo Azerbaijan. waxay soo mareen magaaladii Tabriz oo markaa ka tirsaneyd Azerbaijan, iminkana Iiraan ah. waxa uu go'aansaday ninkii haystay Azerbaijan oo la odhan jiray Ozbek Pahlawan, waqtigaana ku sugnaa magaalada Tabriz, inuu Tataarka isu duleeyo oo uu siiyo xoolo, gaadiid dagaal iyo dhar. hal marna kuma fakerin inuu dagaal la galo Tataar. muxuu ku fakeraa dagaal? maalin iyo habeenba khamri wuu cabbi jiray. markaa xaguu ka keenaya raganimada uu dagaal kula gelayo Tataar? markuu isu duleeyay uu siiyo wixii ballantu ahayd ayay iska dhaafeen, maadaama oo ay waqtigaa qowbaan ka jiray Tabriz oo gelitaankeedu ku adkaa. waxay aadeen Tataarku xeebta galbeed ee badda Qaswiin, iyagoo dhinaca bari ka socda una socda dhinaca waqooyi. duulaankii Armenia iyo Georgia, labadan gobol waxay dhacaan galbeedkii waqooyiga Azerbaijan. waxay maqleen Tataarku inay is urursanayaan qabiilo ka mid ah Kurjida. kurjidu waa kuwa dabka caabuda. waxay ogaadeen khatarta Tataarku soo dhawaatay, markaa waxay isku urursadeen magaalo lagu magacaabo Tiflis, iminkana Georgia ka mid ah. waxaa halkaa ka dhacay dagaal aan mid la iskula hadhin, in muddo ahna soconayay oo dhex maray iyaga iyo Tataar. waxay guushii raacday Tataarkii, waxayna qabsadeen Armenia iyo Azerbaijan, waxaana laga laayay kurjidii tiro aad u badan oo ciidamo ah. muxuu sameeyey Genghis Khan sanadii 617 hijriga, kadib markii ciidankiisu baacsadeen Maxamed Khawaarsimo. markii uu arkay Genghis Khan in madaxweynihii ka talinayay dowladdan intaas baaxadeedu la eg tahay, ay eryadeen koox yar oo Tataar ahi, magaaladu galana ay ka saarayeen, wuxuu bilaabay inuu isku fidiyo waddanka oo dhan, maadaama aysan jirin cid ka hor istaagaysa. wuxuu u dhaqaaqay gobolladii waaweynaa ee ku xirnaa Samarkanda. wuxuu ogaaday gobollada ugu awoodda badan dhulka muslimiinta ah inay yihiin gobollada Khawaarsimo iyo Khuraasaan. Khuraasaan miya? waxaa hoos yimaada magaalooyin aad u ballaaran yahay badkoodu midna mid u dhoweyn. waxaa ka mid ah magaalooyinka Balakh, Marwa, Nisaabuur, Haraat iyo Qasna iyo kuwo kale. iminkana waa bariga Iiraan iyo waqooyiga Afghanistan magaalooyinkani. Khawaarsin miya? iyadu waa qalbiga dowladda. waxaa ku yaala dhufaysyo qalcado dagaal oo aad u khatar badan, khayraad aad u badan iyo gumaysna cayb. muxuu sameeyey Genghis Khan? wuxuu bilaabay inuu nafsad ahaan u burburiyo muslimiinta inta aanu ku duulin ka hor. waxa uu bilaabay inuu burburiyo magaalooyinkii yaryaraa, dabargoyn iyo ciribtiri waali ahna uu ku sameeyey, si uu baqdin iyo argagax ugu fidiyo quluubta dadka muslimiinta ah ee ku nool labadaas gobol ee waaweyn waa Khawaarsimo iyo Khuraasaane. waxa uu Genghis Khan ciidankiisu kala qaybiyay 3 kooxood. kooxda koowaad oo loo xil saaray burburinta gobollada Farqana oo iminkana Uzbekistan ah, ilaa 500 oo kiiloomitir ayay bari ka xigtaa Samarkanda. kooxda labaad oo ah kooxda loo xil saaray burburinta Termud oo iminka Turkmenistan ah, 100 kiiloomitir ayay koonfur ka xigtaa Samarkanda, waana magaaladii imaamkii weynaa ee Tirmidhi. iyo kooxda saddexaad oo shaqadoodu tahay burburinta dhufaysyada Kalaaba.
wuxuu ahaa dhufaysada muslimiintu leeyihiin kuwa ugu wanaagsan ee webiga jeexun ku yaalay. waxay bilaabeen kooxihii saddexda ahaa inay gutaan howlgalladii loo igmaday ee burburinta ahaa, waxayna ku kala baxeen dhammaan gobolladan. dadkeediina waxay ka dhigeen maxaabiis, addoomo, qaar ay dilaan, kuwa ay dhacaan, gubis iyo wax allaalay waxay doonayeen. wax kasta oo qof lagu ciqaabana way ku ciqaabeen. dadkiina waxaa quluubtooda laga dhaadhicay waraaq odhanaysa: tataarku kuma haraad baxaan waxaan dhiig ahayn. badhaadhahooda iyo liibaantoodu waa markay meel rogaan oo halaagaan, lama jabiyo mana jabaan. hadalkaasi wuxuu degay oo saldhigyo ka dhigtay magaalooyin camiran. markay ciidankii fushadeen howlgalladoodii xumaa, wuxuu bilaabay Jingiis Khan inuu toos u weeraro Khawaarsim iyo Khuraasaan. duulaankii Khuraasaan, gaar ahaan magaaladii Balakh, waxay magaaladan ku taallaa koonfurta Tirmiidi. tii ay burburiyeen tataarku maalmo yar uun ka hor. shakina kuma jiro in akhbaartii Tirmiidi iyo wixii ka dhacayba ay wararkoodu soo gaadheen. waxaa quluubtoodii hadhaysay baqdin iyo argagax aad u daran oo ay ka qaadeen tataarka iyo sida ay wax u galaan iyo ficilada xunxun ee dunida aan hore uga dhicin. markii ay ciidamadii dul yimaadeen magaaladii Balakh, waxay dadkeedii ka codsadeen ammaan, waxayna sameeyeen waxaan caadadooda hore u ahaan jirin oo way magangeliyeen. laakiin Jingiis Khan wuxuu damacsanaa qorshe, wuxuuna ahaa inay reer Balakh ka caawiyaan furashada magaaladii muslimka ahayd ee Marwa. reer Balakhna way raaceen oo la dagaal galeen tataarka si loo furto Marwa. muslimka ayaa loo kaashanayaa muslim kale markaasi yeelayaan. laakiin jabitaanka nafsiga ah ee ku dhacay ayay la daaleedhacayeen reer Balakh oo u diiday inay kasoo horjeestaan amarada Jingiis Khan. waxaynu aragnay Maraykanka oo adeegsaday kuwan dega waqooyiga Afghanistan laftooda, weliba gobolka Balakh markii uu la dagaalamayay Kaabuul 2002. mar kale waa kii adeegsaday Kurdiyiinta waqooyiga Ciraaq, dagaalkii Ciraaq. intaynaan gelin rogankii Marwa aynu ku yara horreyna duulaankii Daaliqaan, waxay u dhaqaaqeen gaaladii fadhiday Sabarqande iyo muslimiintii dabadhalifyada ahaa dhinaca gobolka Daaliqaan. waxaa ku adkaatay furashadeedii dhufaysada ay lahayd darteed. waxaa loo yeedhay Jingiis Khan, wuxuuna goodoomiyey muddo bil ah, wuuna furtay. raggeedii way laayeen, dumarkii iyo carruurtiina way addoonsadeen, xoolaheediina way boobeen. dhac iyo qulubgadis bay ku sameeyeen sidii caadada u ahayd. magaaladii Marwa iyo halaageedii waxaa soo kicitamay ciidankii tataarka qayb ka mid ah oo muslimiintii Balakhna la socdaan, oo uu hogaaminayo wiil ka mida wiilashii Jingiis Khan. lama garanayo tiradooda oo dhaba, laakiin qiyaastii waa 100,000 kun oo ciidan ah. markii ay magaaladii u soo dhowaadeen, waaba reer Marwa oo isu soo urursaday oo dagaal diyaar u ah. waa 200,000 kun oo ciidan ah. waa ciidan aad u badan marka lagu qiyaaso wakhtiga ay joogeen. waxaa dhacay dagaal aad u daran oo birtu dheregtay. dagaalkuna wuxuu ka dhacay albaabka Marwa. waxaa dhacay musiibadiis ka haystay muslimiinta wakhtiga ah, kuna dul wareegaysay. waxaa laga adkaaday muslimiintii, waana la birbireeyey. birtana waa laga aslay ilaa intoodii badneed la laayay, intii kalena la addoonsaday. ismana dhiibin wax yar mooyaane. waxaa la qaatay xoolahoodii iyo hubkoodii ciidankan. wuxuu leeyahay taariikhyahankii Ibnu Athiir, bal ka warran askar la dagaalamaya cadowgiisa oo aaminsan inaan cadowgani guuldarraba aqoon, siday noqonaysaa naftiisa iyo mooraalkiisuba. sidaasuu ahaa xaalkii muslimiinta ee wakhtigaasi. waxaa ku dhacay muslimiintii jab qadhaadh. waxaa la furtay albaabadii waaweynaa ee Marwa. waxaa Marwe degan ama ku nool aynu nidhaahnee 700,000 kun oo muslimiin ah. way goodoomiyeen tataarku magaaladan. quluubtii dadkana argagax awgeed bay galgalatay kadib markii ay arkeen ciidankoodii oo hortooda ku shufeelay. tataarkiina 4 cisho ay goodoonkii ku hayeen magaaladii Marwa. maalintii shanaad ayaa hogaamiyey tataarku waa ina Jingiis Khan u soo diray warqad ninkii magaaladan haystay ee muslimkaa, wuxuuna ku leeyahay warqadan: ha halaagin naftaada iyo dadkaagaba, iska soo bax. waxaan dhulkan oo dhan kaaga dhigaynaa amiir laga amar qaato, dhulkanna aadan kaaga tegaynaa. wuu rumaystay ninkani warqadda uu soo diray horjoogiyey tataarku, amaba aynu nidhaahnay naftiisa ayuu ku khasbay inay rumaysto warka ninkan. waa la soo dhoweeyey, xaflad yaab badanna waa loo dhigay. wuxuuna ku yidhi nijaaskii, xil ayaanu kugu wareejinaynaa. sidaa awgeed ii keen ehelkaagii, odayaashiinni, waxgaradkiinnii, si ay markhaati uga noqdaan amiirka aan kaa dhigayo, iyo si aan u aragno inta diyaarka ah iyo inta diidan inay noqdaan adeegayaal daacad ah, oo aan u siino waxa ay u baahan yihiin. cunaqabataytana aan uga qaadno oo ay annaga naga mid noqdaan. adeegayaashiisa ayuu diray odaygan la khiyaamay. waxayna soo kaxeeyeen wafdi ballaadhan, waa wasiiradiisii, askartiisii dagaalka ka hadhay iyo dhammaanba waxgaradkii magaalada. markay yimaadeen waa la qabqabtay, dhammaantoodna xadhig baa lagu geejiyey. waxa uu dalbaday ina Jingiis Khan in la qoro 2 liis. liiska hore waxaa lagu qorayay tijaarta caanka ah ee waaweyn magacyadooda. liiska labaadna waxaa lagu qorayay magacyada dadka farsamo yaqaanada ah, islamarkaana leh xirfad aqooneed, hadday tahay hubka samayntiisa iyo noocyo kaleba. kadib ina Jingiis Khan wuxuu amray in la hor keeno dhammaan dadka magaaladan gacanta la soo mariyo oo aan qof lagaga iman. waxaa la keenay kursi dahaba, ina Jingiis Khan baana ku fadhiistay. wuxuuna bilaabay amaradiisii. amarka koobaad waa in la keenay madaxweynihii magaaladan iyo duqaydiisiba. dhammaanna waa in lagu horlaayaa caamadan. waxaa la keenay wafdi ballaadhan oo ah dadkaynu soo xusnay.
dhammaantoodna seeftaa la mariyey iyadoo ay dadkii daawanayaan ilmaynayaanna. amarka labaad, dhammaan waa in la soo saaraa dadkii xirfadlayaasha ahaa. Mongooliyana waa in loo diraa si looga faa'iidaysto. waa in la karbaashaa, la ciqaabaa oo la garaacaa dhammaan maalqabeennada ilaa ay ka sheegayaan meesha ay xoolahooda ku jiraan, waana lagu filiyey amarkaa. qaar ka mid waxay ku dhinteen ciqaabahan kala noocnooca ah. waa in la baadhaa guryaha magaalada oo dhan, wax allaala iyo wax kasta oo naf lehna laga soo qaadaa, ilaa baadhitaankii gaadhi heer ay soo qodaan xabaasha boqorkii la odhan jiray Sanjar, iyagoo isla waaba intaasood ka heshaan wuxuun dahab ah oo lala aasay. baadhitaankanina 3 cisho oo xidhiidha buu socday. amarka shanaad oo ugu argagax badnaa. kadib wuxuu amray in Genghis Khan Ilaahay naxariistaa ka fogeeyey isagii aabihiibe in la xasuuqo dhammaan dadkan. waxay bilaabeen Tataarku inay xasuuqaan dadkii magaaladii Marwa, iyagoon u kala eegeen rag, dumar iyo carruurba. waxay yidhaahdeen magaaladan way iska kaaya celisay, cid kasta oo iska kaaya celisana cirib dambeedkeedu sidan buu noqonayaa. taariikhyahankii Ibn Athir wuxuu leeyahay wuxuu amray in Genghis Khan in la soo tiriyo dhammaan meydadka, waxayna noqdeen 700,000 oo qof. waxaa magaaladii Marwa lagu dilay 700,000 oo muslimiin ah. run ahaantii waa waxaan hore basharku soo marin, taariikh fog iyo mid dhow toonna. magaaladii Marwa halkaas bay kaga hadhay taariikhdii adduunka oo wax la ilaawo ku noqotay. weerarkii Naysaabuur waa magaalo weyn oo kale, kana mid ah gobolka Khuraasaan, iminkana waxay ku taallaa waqooyi bari Iiraan. xaggeeda ayay u dhaqaaqeen kadib markii ay dhulka dhigeen magaaladii Marwa. way goodoomiyeen magaaladii Naysaabuur muddo 5 maalmood ah, iyadoo aan ciidan muslim ah isku urursanin. waxaa soo gaadhay magaaladan wararkii Marwa iyo wixii ka dhacay. argagax iyo qalbijab ah iyo dadka magaalada Naysaabuur. ciidankii Tataarku way iska soo galeen magaaladii, dadkiina dhammaantood saxaraha ayay uga baxeen. habaarqabe war la ordaya u yimi ina Genghis Khan oo sheegay in dadkii magaaladii Marwa inay qaar ka badbaadeen seeftii, Tataarkuna moodeen inay dhinteen. waxa uu amray in dhammaan la gumaado dadka magaalada Naysaabuur, qof kastana madaxa laga jaro si loo hubiyo dhimashadiisa. waxay baadheen magaaladii, waxayna qaateen maalkeedii, dahabkeedii iyo wax allaalay wixii nafci buuran lahaa. magaaladii Naysaabuurna waxay ka tageen raadkeeda oo qura, laakiin iyadu wax jirta ma ahayn. waxaa xigay weerarkii Haraat. waxay ahayd magaalo aad u weyn kuna taalla waqooyi galbeed Afghanistan. iyada ayuu aaday in Genghis Khan isagoo wata ciidankiisa dugaaga ahaa. magaaladan lafteedu kama badbaadin musiibadii ku dhacday magaalooyinkii Marwa iyo Naysaabuur. aakhirkiina in Genghis Khan magaaladii intuu gubu ka baxay. waxaa magaaladan ka tirinay nin la yidhaahdo Malik Khan. waxa uu kaxaystay ciidan wuxuuna u cararay Qasna oo ku taal koonfurta Afghanistan. sidaas ayay ahaayeen boqorradii iyo madaxdii waqtigaas. way isku raacsanaayeen cararka marka shacabkoodu gola guustambeedka Nibiriga. dhicitaankii magaaladii Haraat waxa uu dhammaystirayeen gobolka Khuraasaan dhammaantii gacanta lagu wada dhigay. dhammaantood waxaan oo furasho iyo burburahi waxay dhacayaan 1 sano gudaheed. sanadkaasina waa 617 hijriga. waa waxyaabaha ugu la yaabka badan ee taariikhda lagu arkay. duulaankii Khawaarsim. Khawaarsim waa dhulka ay degan yihiin qoyskii ninkii cararay ee Maxamed Khawaarsim. waxaa isku urursaday muslimiin tiradooda aan la qiyaasi karin. dhufaysyadeeduna waxay ahaayeen kuwa ugu adag ee ay muslimiintu leeyihiin. waxay ku taallaa iminka xuduudda u dhaxaysa Usbekistan iyo Turkmenistan. waxay si toos ah u dhacdaa webiga Jeyxuun. waxa kaloo ahayd xarunta dhaqaalaha muslimiinta, difaaca iyo istiraatiijiyadda. magaalada noocan ah buu u jahaystay nijaaskii yaraa ee Genghis Khan dhalay, isagoo wata ciidankiisii ugu awoodda badnaa. magaaladanna wuxuu goodoomiyey muddo 5 bilood ah. wuxuu wasakhii dhalay ee Genghis Khan ka dalbaday gurmad dheeraad ah, wuxuuna u soo diray ciidan faradhaaf ah. waxaa lagu soo qulqulay waddankan qulqul aan caadi ahayn, ilaa ay magaaladii saareen cadaadis aad u badan, kuna soo xoomeen deyrkii magaalada. waxaa soo baxay ciidankii muslimiinta ee magaalada, waxaana la iska helay magaalada horteedii. waxaa halkaas ka dilaacay dagaal aad iyo aad u qadhaadh. waa la isku jilbo aastay. waxaa iskaga dhintay khalqi aad u tiro badan. gurmad badan baa u imanaya Tataarka, laakiin muslimiintu waxba uma iman, maadaama ay muddo 5 bilood ah goodoonsanaayeen. sababtaa awgeed waxaa muslimiintii ku batay dilkii iyo dhaawicii. waxay bilaabeen muslimiintii carar iyo kala firdhad. Tataarkiina waxay ku kaceen wax naxdin badan kadib markii ay dumiyeen biyo xidheen weyn oo webiga Jeyxuun lagaga xidhay magaalada. looguna talagalay inaan biyaha webigu qaadan magaalada, markaasay dumiyeen oo ku soo fatiyeen magaaladii. magaaladii Khawaarsimna dhammaanteed webiga qaaday. god kasta iyo guri kastana way galeen biyuhu, wixii ku jirana way qarqiyeen. waxay daarihii magaaladu dumeen si la yaab leh. hal qofna kama badbaadin dadkii magaalada siday u dhammaayeen. waxay ka tageen magaaladii camirneyd Tataarku iyadoo kharaabada ah. waxaynu weli ku jirnaa sanadii 617 hijriga ee madowga iyo dhigdaadinta taariikhda basharka ku galay. maxaa xigay ay Tataarku sameeyeen?